السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي. maanta subax wanaagsan horta saaka waxaan joognaa Isiolo waxaan idin tusayaa quick video oo Isiolo town magaalada say u eg tahay iyo wadooyinkeeda oo yara qurux badan haddaad reer Isiolo tahay ama aad Isiolo hore u timaaday wada aad taqaanid aad aragtid commentiga noogu dhaaf haddaad naga soo daawanaysid xuduudada dalka Kenya magaalooyinka Soomaalida degta especially iyo magaalooyinka isa deginba وجعلنا له هدينا نتاو كاغا نيمانو كومنتيغا نوغو دافيدana waa mahadsantiin soo dhawaada. Isiolo waa magaalo ku taal gobolka Isiolo ahna caasimadda gobolka waxayna ku taala gobolka Upper Eastern ee dalka Kenya. Juqraafi ahaanna waxaa lagu tiriyaa inay tahay xudunta dalka Kenya. Waxay 285 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigtaa caasimadda Nairobi. Waxaana marta wadada A2 oo tagta Moyale ee xuduudka Itoobiya. Magaalada waxay ku kortay hareeraha xerooyinka ciidamada degan deegaanka. Dadka intiisa badan waxay ka soo jeedaan askartii hore ee asalkoodu ahaa Soomaali iyo dadka Koshitiga oo ay Soomaalida isku asalka yihiin sida Booranta ahna dadka ugu badan ee degan magaalada iyo nawaaxigeeda haatan. Sidoo kale waxaa dega bulshooyinka Turkaanada iyo beesha Meru. Dadkani waxay u badan yihiin farci askartii ka dagaalamay dagaalkii koobaad ee adduunka. Magaalada waxaa ku nool dad lagu qiyaaso ilaa 200,000 oo qof. Badankooduna waxay ku nool yihiin daafaha magaalada si la mid ah inta badan magaalooyinka Afrika. Waxaa sanadahan dambe si istaba joog ah u soo kordhayay dadka ku nool magaalada kuwaasoo ka soo guurayay Moyale, Marsabit iyo Mandera. Magaalada Isiolo waxay sidoo kale noqonaysaa xarun xiiso leh sababtoo ah maqaamkeeda cusub ee la helay oo ah magaalo loo dalxiis tago sida meelaha lagu dalxiiso ee Samburu, Buffalo Springs iyo Shaba waxay ku yaalaan waqooyiga magaalada halka kaydka Lewa Downs uu ku yaal koonfurta Isiolo. Sidoo kale beerta qaranka ee Meru waxay ku taalaa dhanka waqooyi bari ee magaalada. Meelahan lagu dalxiiso ayaa waxay ka mid noqdeen meelaha ugu fiican ee dalxiis loo tago ee dalka Kenya sida Masai Mara oo kale. Isiolo waxay qayb ka tahay qorshaha horumarinta dhaqaalaha Kenya hiigsiga 2030 ama waxa af Ingiriiska loogu yeero Vision 2030. Qorshuhu wuxuu ka baaqayaa in Isiolo ay noqoto xarun dalxiis oo ay ku jiraan casinos, hoteelo, dukaamo tafaariiqeed sare leh, garoon diyaaradeed, waatan haddana garoonkii oo casriya laga dhisay. Sidoo kale boosteejooyin baabuurta ay istaagaan. Isiolo waxay sidoo kale noqon doontaa xarunta isku xirta projectiga weyn ee loo yaqaano Lapset oo ka soo bilaabata magaalada Lamu ee gobolka xeebta oo tagi doonta ilaa iyo Addis Ababa Itoobiya. Degmadani Isiolo waxay ahaan jirtay xaruntii dhexe ee degmooyinkii la isku oran jiray Northern Frontier District ee marka la soo gaabiyo loo yaqaanay NFD sanadii 1922 ilaa 1963 markii Kenya ay xorriyaddii ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Magaaladu waxay kaloo caan ku tahay suuqeeda weyn ee aluminiumka la isku qurxiyo. Magaalada Isiolo ayaa sidoo kale ah xudunta gaadiidka loo raaco magaalada xuduudka waqooyi ee Moyale. Gaadiidka Moyale u socda iyo kuwa ka soo baxa ayaa ku hakada iyadoo taasina kor u qaadayso ganacsiga hoteelada ee bartamaha magaalada ku yaala. Dadka Soomaalida ah oo markii ugu horeysay ciidamo ahaan u degay deegaankaas dagaalkii koobaad ee adduunka kadib ayaa u badan dad ganacsato ah oo ku shaqeysta dhaqashada xoolaha. Sidoo kale waxaa magaalada dega dad ganacsatiyo kule oo sida Hindidoo kale ah. Magaalada dadka ku nool waxay u badan yihiin muslimiin waxaana ku yaala masaajidyo aad u badan. Masjidka ugu weyn ee magaalada waxaa la yiraahdaa Jamia Mosque waana kan hadda aad ka aragtaan sawirka.
cimilo ahaan magaalada Isiolo waa magaalo kulul, laakiin magaaladu waxay leedahay geedo aad u waaweyn oo wadooyinka bartamaha ka mara magaalada geesaha ka saaran. bisha 6 ilaa bisha Agoosto magaalada waxaa ka dhacda dabaylo aad u badan oo boorar badan wata oo siigadu kacaysa magaalada. bal aan haddana u gudubno dhanka siyaasadda magaalada. governorkeedii ugu horreeyay ee magaalada waxaa la oran jiray Godana Doyo, waxaana la doortay sanadii 2013 ilaa iyo 2017 wuxuuna ku soo galay xisbigii madaxweyne Uhuru Kenyatta ee la oran jiray Jubilee. sanadii 2017 ilaa 2022 waxaa kursiga Isiolo governornimada ka ahay nin rugcada siyaasadeeda oo dhakhtar ah oo la dhihi jiray Maxamed Kuti. ninkani aad sawirka ka aragtaan magaciisa waa Cabdi Guyo, waana governorka Isiolo County hadda. 2022 bishii August doorashadii dhacday ayuuna ku guuleystay isagoo watay xisbigii madaxweyne Uhuru Kenyatta. Cabdi Guyo markiisii hore wuxuu ahaan jiray MCA ama waxa loo yaqaan Member of County Assembly ama hogaamiye deegaan. deegaankiisina waxaa la dhihi jiray Matopeni ee magaalada Nairobi, isagoo markaas ka ahay haddana majority leader baarlamaankii Nairobi. nin dhalinyaro dhanka siyaasadda aad u cadcad buu ahay. dadaalkii badnaa uu ku bixiyay kadibna waa kan maanta ka noqday governorka Isiolo. haddaan halkaas kaga gudubno dhanka siyaasadda, nin qoraa Amerikaan oo magaciisa la oran jiray Daisy Waff ayaa sanadii 1994 wuxuu imaaday magaalada Isiolo, wuxuuna ku noolaaday muddo ugu yaraan 6 bilood ah. ninkii isaga ahay wuxuu ka qoray magaalada Isiolo book uu ugu magac daray Small Town in Africa sanadii 1994. buuggaas oo taariikh badan oo magaaladana ka sheekeynaya. waxaadna ka heli kartaan bookshopyada magaalada Nairobi iyo meel kastoo dunida ka joogtaanba. bal buuggaas iyo taariikhdiisa bal akhriya. ninkan mucjisadu ku arkay magaaladan iyo sababtu u jeclaaday uu ugu yeeray Small Town in Africa. Isiolo county ahaan ama gobol ahaan aad bay u weyn tahay. waxay xuduud la leedahay ismaamulka Meru, waxay xuduud la leedahay ismaamulka Garissa, waxay xuduud la leedahay ismaamulka Laikipia, waxay xuduud la leedahay ismaamulka Marsabit. dhul ahaan aad bay u weyn tahay. saasoy tahayna waxay ka mid tahay gobolada ugu yar dalkani Kenya. 2 waxay qabtaa deegaan doorasho, waxaana ka soo gasha 2 xildhibaan bes. countiga saas u weyn oo baaxadda dhulka intaas la eg leh oo haddana shacabka ku nool uu aad u yaryahay. daawade adigu Isiolo ma taqaanaa? horey ma u timaaday? adigu reer Isiolo ma tahay? haddaad reer Isiolo tahay dunida dacladeeda naga daawanaysid, meeshay rabtaba ha noqoto, ama aad aragtay gurigiinii ama waddo aad ku kortay ama iskuulkaagii ama asxaabtaadii meel aad ku ciyaari jirteen dhalinyaronimadiinii ama wax xusuus kugu reeba oo magaaladan ku saabsan, fadlan la share garay asxaabtaadii. commentigana noogu dhaaf wixii aad suggestion qabtid. videoyaal taariikho oo gobollo kala duwan dalkani Kenya magaalooyin badan halkan ku xirnow oo la soco. sidoo kale waxaan ka hadalnay magaaladii Nyanyuki la dhihi jiray, dhulbirihii iyo xaaladiisa. waxaan ka hadalnay video kale oo ku tagnay magaalo aan caanageel ka doonanay. haddaad u aragtid inaad videogan haba yaraatee wax yaraad ka faa'iidid, la share garay asxaabtaada, kuna xirnow channelkeena. aad baanan idinka mahad celinaynaa. soo dhawaada. hallo asxaabay, videogi waa noo dhamaaday. waad aragteen magaalada Isiolo say u eg tahay. nin walba sawir buu ka aaminsanaa intuusan videogan daawan intiinaan horay u imaan magaaladan. Isiolo waa taasaa quruxdeeda. waa magaalo Soomaaliyeed. kusoo dhawaada, kusoo dalxiisa. meelo badan oo dalxiisay qabtaa iyadana video kale oo next time aan idinla share garayn doonaa. laakiin hadda intaasaan ku joojinaynaa videoga magaalada iyo drivingkeedii. haddana waxaan aadi doonaa halkaas iyo Meru town. shalayna waxaan tagnay videogeeni shalay waxaan tagnay Maua town. iyadana beerihii qaadka iyo wixii dhan baan idiin soo duubnay. video ka horreeyay daawo haddaad rabtid inaad aragtid beerihii qaadka iyo siday u shaqaynayeen iyo dadka Meru maqaad besay ka shaqaystaan mise waxyaalo kalena waa qabtaan. thank you very much. alla yacizak.